waxaanu nahay raggii ama beeshii halganka bilowda xornimada Soomaaliya ee daraawiish ee dhalisay xornimada Soomaaliya imikana waa ku dadaalaynaa inaan la kala goyn sharafkeedii iyo Soomaalinimo iyo midnimadeedii iyo calanka yurada ka bubanaya inaan lagu ciyaarin inta waxaan u sheegaynaa adduun weynaha iyo dawladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed walaalaha wixii saxan waxaan u sheegaynaa maamulka anagu oran mayno Soomaaliya maamulka SNM Silaaya madax ka yahay kariirida dhaqanaya in uu kala baxo ciidamadiisa uu ilaa sayl iyo ka keenay qulujeed iyo xariirad ee aan dad iyo dhiig iyo dhaqan midna aan ka hayn waxaan u sheegaynaa inuu si nabadgelyo waxa uu nool wixii dhintay mooye kala baxo inuu dadkiisa kala baxo wuxuu la heshiiyay madaxweynaha Soomaalida dadka dariskaana waa isku diraya dawladda Soomaaliyeed iyo adduunkana wuu la heshiiyay inuu isagu gacanta dhiigu doonaya isagu dadkiisa wuxuu u sheegayaa been buu aaminsiiyay annagu dadkayga run baanu aaminsiinayna oo aanu aaminsanahay kariirida uu dhaqanaya ha iska daayo Silaay kariirida way ka bislaato way ka bushuqday ha iska daayo waxaanu kaloo sheegaynaa maamulka sheegashadiisu adduunka waa ku xaaraan annaguna waa uga jawaabaynaa hadday saxaafadda tahayna waa uga jawaabaynaa gacanka hadalka hadday tahayna horena waa uga jawaabaynaa iminkana waa u diyaarsanahay inaan uga jawaabno maamulka dalka iyagana waa inuu ka baxaa si dhaxsana waa inuu ka baxaa waxaanu dadka islaamka u sheegaynaa oo waanu arhinaynaa hadday ka bixi waayaan waxay kaga baxaan baa ku dhici doonaa intaa waxaan sheegayaa inuusan Silaaya dalka iyaga dib u sheegan kabana mid yihiin kariirida iyo Soomaaliland u dhaqan waxaa jirta oo kale sheegashada ayna sheeganayaan aad iyo aad baa waxa weeyaan dawladda iyada iyo shacabka iyagaba ay dib weyn ay noogu tahay sheegashada ayna sheeganayaan waxa weeyaan waxay rabaan beesha caalamka inay waji naga doontaan sheegashada ayna sheeganayaan waxaanu adduunka iyo beesha caalamka u sheegaynaa inaanan ka tirsanayn inaanu nahay dawlad leenahay dawladuna ay tahay dawladda Khaatumo gobolada Sool iyo Sanaag iyo Caynna looga taliyo shacabkooda dawladdaas ay ku kunto oo taliso ay ka tirsan yihiin sidaas aanu beesha caalamka iyo warbaahinta u sheegaynaa waxaan kaloo aan codsanaynaa dad islaam ah oo ahay islaamnimo oo ka baxo dhulka iyaga oo faragelinta naga ka daayo Soomaalidu waxa kala ay tiraahdaa xagala geey wax guntiga la geliyo ka weyn dad la sheegto waan ka weynahay oo maartay la iska tirsado sidaas aan adduunka u sheegnaa nabadgelyada la ka baxo nabadgelyada la ka baxo rabnaa farahayna la ka qaadan rabnaa dhibaabaha la ka daayaan rabnaa dhibaabaha la ka daayaan adduunka aan u sheegnaa saas aan codsanayna وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد أشروينها ويقول ريان الصحافة لن يرى الصحافة عقاشة ضياشة لن يرى لما أنت محمد كسر على سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعاقل هذا على أحذر عقاشة قبل كعين أبو هذا qodobka koowaad aan ka hadlayaa waxa weeye marka hore haddaanu nahay cuqaasha iyo waxgaradka dhalinyarada haweenka dhammaanta culimaa diinka dhammaantayo waxaanu hiil iyo hooba la garab taagannahay maamulka Khaatumo State of Soomaaliya oo ah maamulka aanu tirax ku soo dhisannay marka hore caalamka intaasaan ogeysiinaa marka labaad waxaan ogeysiinaa dawladda federaalka iyo madaxweynaha Shariif Sool iyo Sanaag inuu yahay xornimadii Soomaaliya cidii sababta waa inay iyaga yihiin cidii daraawiish la baxday inay yihiin magaca ciidamada daraawiishta ee Soomaaliya ay loogu magac daray in halganka iyaga uu ku yimi caalamka Soomaaliya maanta dusheeda ka babanaya kaasoo maantana aanu diyaar u nahay maamulka iyaga shacabka iyaga inaanu hareeraha qabanno waxaan u sheegaynaa inaanu nahay dad darisa walaala ah aan kala maarmin colaad iyo hadii nactooyo ayaan dhex mari karin
waxaanu u sheegaynaa mar labaad oo ku celinaynaa maamulka Puntland ee farada madaxda ka yahay inuu naga daayo faragelinta siyaasadeed ee uu ku hayo maamulka Khaatumo State of Somalia waxaanu kale u sheegaynaa maamulka geesta kale naga xiga galbeedka ee Somaliland iskilaya madaxda ka yahay inuu si shuruud la'aan uga baxo wadanka iyaga goboladayada uga baxo ciidamadiisa ka qaato haddii uu leeyahay gogol baan dhigay oo nabad baan ku baaqaya haddana wuxuu leeyahay waxaan soo afjaraya xuduudii Somaliland baan soo afjaraya hadal galbada hadal isqaban kara maaha miduna ku ekaado sheegashada labada gobol ee hareeraha naga xiga waxaan leenahay sheegashadiina waxba kama jirin caalamkana waa u sheegaynaa waxaan leenahay iska hadlow inay garre اللهم فشد إلهي مرخاتك أو إسلامك مرخاتك أو سومالي مرخاتك أو مامك السودان لأن عدم يسهل نقلبه هدو بحي وايو وعدم يسهل كوكالو وإنت وحانو الشيء إنك عن بلا أنو كلا ارتقي دونه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورينا هالي اسكداي عيب والله هلو دايو dalkeeda iyo danteeda iyo wixii hal loo daayo ruuxa lagu riyoonayana hal iska daayo wax doowa ma waxaan leenahay riyada hal laga baxo hal loo daayo cid walba wixeeda annagu waxaan nahay maamulka kaasaan ka tirsanahay waxaan hoos tagnaa dawladda Soomaaliya iyo federaalka iyadana ka mid nahay waxaan leenahay cid kasta oo doonta inay gool istaagtana wuxuu suurogleeyay uu riyooda ninka la yiraahdo waxa gabeeyay la yiraahdo wiil baa waxaan munaasib ahayn ku gacay wuxuu wiiliyo adoo geed hurda baad gamariyotaay markaasaad gawaamaha cidla ah geeyay malahayga geed kala ma kicin gabiga soo jeeda waxa uu ku riyoonay ninka la yiraahdo waxba kama jiraan waa riyo waxba uu istusay dawladda Soomaaliya waa mid calan quray lahay شرعية قروبها كذا حيث كرسي لا يفوله هاي كاسي كفر دلي نينك جوجوين يانا ونين خالد وضع ومدة عالم كانوا وحنا لها أرك نينك خالد وضع يعني لو كالمين نين خالد وضع إتكسر خالد وضع وإن لقى قبضها وحنا كتيرة ثلاث جوين على قاعدة كريم كتيرة وحنا لها كالتناسل ضد كعقرع كم من نقط أنا جنها مش لقى تأثير الناس كذا يوم أنت ولا حاجة عيد ماذا مدبية مدة وحنا مجري وحنا الله أهب مجري وحنا مجري وحنا قوم قبنا جرنا ورجال قوم مكان فضل قوم مكان الدنيا قوم مكان هذا ربحنا نجربته وحنا نجربته ما جرنا إنه وهذا الإسلام سيدنا في الواقع ده الإسلام حداتين وإلهينا ده في الواقع فرحنا كلبها وحنا وسوق الإسلام وظلمي إيه جرته إيه وحنا قارن كريم أنا لو أرجعنا ومدة كلا الإسلام كأبو الصومالي دينا واحد أنا نقول لك تاني دكتور نوها إنسان ده هو يركتار ده هو حافي عن هو الصومالي ده هو ده هو مسلم ده هو الشيعة واحد يرد تهاي يصير هاي أما الدولة الفدرالية كلها أما الجمهورية كلها ده يقف كي خلدان الظلم وده إن الله الشيعة كل أجيسيو وأنا لقاه يبيسن بيكون أحسن هو الشيعة واحد كلام قوي كلا صومالي مسلم ديمada Soomaaliya waa muqaddis waa mid qura ninkii sheegta wax sheegtana uu ku riyooday ee wax u suura galaysa maaha waxaan leeyahay riyada ka baxa raaca dadkiina isku mid Soomaaliya ka dhiga sida ay ku celiya si ka duwan oo idin suurta galaysana ma jirto isla oranina waxaan waxba ka jirin baa idin suurta galayana aku qalbigiina aku ridina akuna talagelina أكون تشانين أنا وحلاي هاي أرنتيدي أنت أصلاً كجب حياة وحلاي هاي أنا كم يعيب حلاي الحاج محمد عمر قول باليدا وحلاي هاي خاتمة هالنورات خاتمة هالنورات خاتمة هالنورات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كميدة قلتنا مقالة هو هذا أما خاتم انت امريكان كدبو هذا الدبدي يا هيا الدبدي
يا هروب دمدي باجران ليليو انتي هورا تري waxay dhaafeen ku hadli maayo laakiin waxaan ku hadlayaa taakiidaan ku hadlayaa annaga oo doonayna waxa aanu sheegaynaa inay runna naga tahay gunna naga tahay adduunka waxaanu u sheegaynaa adduun weyne waxaanu u sheegaynaa dawladda federaalka waxaanu u sheegaynaa dadka islaamka ah inaanu nahay maamul ku magacaaban khaatumo kaasaanu nahay oo dadku aanu rabnaa inuu nagu ogaado kaasaanu nahay intaa marka laga gudbo halkan waxaa ka dhacay shirkaas wuxuu u shiray hadal ka soo yeedhay dadka isku magacaabay SSC Somaliland dadka Somaliland isku magacaabay hadal ka soo yeedhay oo ay yiraahdeen sool iyo sanaag iyo cayn baanu leenahay hadalkaas aanu ka hadlaynaa waxaanu adduunka u sheegaynaa inuusan hadalkaa waxba ka jirin ka sheegay inuu been sheegay in annagu magaceeda iyo maamulkeeda iyo degsiimadeeda aanu leenahay weligeedna lahayn dadkii lahaa waa joogaa mana dhiman mana dhoofin qodobka ah oo aanu adduun weynaha u sheegayno kana kiciyey ee aanu ka hadlaynaa kaa weyn intaa waxaanu ku daraynaa maamulada hareeraha naga jira Siilaanyo waxaanu u sheegaynaa waxaa la yidhi duqsigu fuud buu ku dambaal bartaa fuud buu ku gubtaa ciirna wuu ku dambaal bartaa baa la yidhi waxaanu leenahay sida uu istusay ma aha sida uu istusayna si u maloobaysa ma aha Siilaanyo waxaanu leenahay taladii uu markii hore galay talaha ka dambaysiiyo dib ha ugu noqdo dadka Somalilandna waxaanu leenahay dadku dad wax walba isu aweey dad Soomaaliya weey inuu keenu dhinta iyo inuu kaayagu dhinta midna ma rabno haddaa dad islaam tihiin dalka yaga nooga baxa haddaa dad islaam tihiin dalka yaga nooga baxa idinkana intaasaanu idin leenahay maamulka Puntland waxaanu u sheegaynaa eedka wada tirsan mayno maamulka eedka wada tirsan mayno shicibka aad uma hayno laakiin faroole iyo inta uu la tashado waxaanu leenahay dagaalka aad nagula jirtaan ka hoose anaga daaya